الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسكم إن شاء الله تعالى وحكو سابسين حديث كمدة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقصة أروري في صحيح مسلم. حديث كسي أبا هريرة ورنا يوحان النبي قولي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما حكوت المامية قيب حكو سفينيا قفك مؤمن كاه حوغن يسدوغ خير بدن يهي كي ضعفك كتشره. قيبها الضمانة وحكوت المامية النبي عليه الصلاة والسلام وصية وصينا يددك مسلمين تا وحنا بيقول المؤمن القوي مؤمن كحوغاه قوة لشيغيا ومعنى بلارنتي. علماء ضبط وكمية إمام النووي رحمة الله عليه وحليه والقوة في الدين والتقوى والعبادة. قفك مؤمن كي كحوغا عقيدة ديسية دين تيسية عبادة ديسية كاول اسكو الرعسي سيني كاسا خير وأحب إلى الله كخير بدن وألكتي سلقاقتش عليهي من المؤمن الضعيف مؤمن كعقيدة ديسة أما إيمان كيسة أما عبادة ديسة أما أعماشيسة آخرة أي ليدته. وحيكلو علماء كت المامان المؤمن القوي. المؤمن القوي وكا الرجل القوي هذا أي القوي في رجولته كاسوا معناه لبعض علماء التلمامة وحويان إن قوة الله إطلاقه ومؤمن كحوق بدن له سواء هدو حوق جريدي هاي أو دي جهادي عبادة يكو استعمال أما هدو حوق عقليادي هاي أما هدو حوق علميادي هاي أما هدو حوق عبادي أي باب حوق وقل كرابي لي marka mu'minka awoodda badan leh ee awoodiisa si khayrka u adeegsadiya iimaanka iyo intaajka iyo wax soo saarka mu'minkaasa ka khayr badan mu'minka daciifka ah. culimadu waxay yidhahdaan fil asli de quwada waa layna faray waaciddu lahum mastatactum min quwa baa ilaahay yidhi markii gaalada iyo jihaadka laga warramayay waxaa u diyaarsataan wixii xooga awoodaan oo dhan baa la yidhi. idan xooggu في كل أبوابه هذه خير له أديك سنة يوا خير. وواحد هذا مؤمنك شرهان حق بدن قوة بدنية له خير كوا أديك سنة ده كوحتر بدنية مؤمنك ضعيف كاسكليته يعني سقوا واحد بدن قبل كرينين مؤمنك حقه في علمه وفي إنتاجه وحصصار كيسيا قونتي سي حق بدن تهي dadka ku anfacaya wuu ka fadli badan yahay kii jahliga ku jiray amase kii aan muntijka ahayn ee laziga ahaa kii qofkii iska fadhiyaan wax soo saarka lahayn. waxay duuduub ahaan tilmaamaysaa quwadu xataa quwa albadaniya. qisadii matala nebi muuse ilaahay markuu ka warramayay reer u yimi magaalada meesha dadku xoolaha waraabsanayaan habluu laba hablood ay xoolahoodii cidla ula baxeen maxaa idinku dhacay buu yidhaa xoolaha waraabsan weydeen. waxay yidhahdeen annaga aabahayana waa gaboobay yacni waa daciif maa yaqdir shay annaguna ma gallo raggu meeshan ay isku jiidhayaan ilaa iyo ay ka baxaan dabeetana wuu u waraabiyey. hadhow inantaasi markay aabbaheed la hadlaysay ee rabtay ninkan in reerka aanu ka tegina si uun loogu hayo
ayaa waxay tidhi yaa abat ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin aabbow ninkan shaqaalaysiisa bay tidhi oo ajiir ka dhig ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin bay tidhi qof shaqo loo dirto waxa u fiican qof xoog leh oo qawiyo wixii qaban karaya ammaanana leh idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa mu'minka xooggan oo ay ugu horreysay ilaahay rumayntiisa iyo taacadiisa iyo cibaadadiisa iyo acmaasha aakhire ku xooggan dad baa jira sida kale u xoog badan laakiin marka ay timaado cibaadaadka iyo diinta iyo caqiidada ducafa ah kani kow waa qof baabkaasi ku xoog leh ka labaad waa qof bay yidhaahdaan muntij ah qof wax soo saar leh kaasi wuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka ah haddana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wafii kullin khayr mu'min oo dhanna khayr baa ku jira hadduu qofku iimaan iyo camal la yimi ha laba kala martabo sarreeye khayr baa ku jira waxay yidhahdaan culamaa ilbalaaga masaladan oo kale alixtiraaz bay yidhaahdaanoo waxay ku tilmaamaan qofku intuu war yidhaahdo in siyaabo kale aan loo fahmin ayuu ka ixtiraazaa مثلا إلهي القرآن كوحكويري لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا مص النبا إلهي كوي فتح مكهر تدحولها بحيات دقا الله ما يدين توسوها القمي كوا سا درجة سرية وفتح مكة كدن بي وحي مركاي السلامية وحقبطيميان وحد وترسيس الهين هداد سيدا وفهم الهيد ويقلدم الهيد لكن إلهي بكسي جوابه وحولي وكلا وعد الله الحسنى لما أنتو إلهي باوية بوهي وناق لبضوا بوناق بيلي سيدا وقيد مثلا قصة النبي داود يا نبي سليمان وحكمي مركا إلهي تلمامي وحولي وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان بإلهي waxaa xustaa nebi daawud iyo nebi sulaymaan markii ay xoolihii beerta galay xukumayeen waxaa ilaahay ku tilmaamay fafahamnaha sulaymaan nebi sulaymaan baanu fahamsiinay nebi sulaymaan baa la fahamsiiyey daawud wax garan maaya miya maya si aan kaa looga fahmin baa ilaahay yidhi wakullan aataynaa xukman wacilma dhammaantood waxaanu siinay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xukum iyo cilmiba labaduba dhammaantood way lahaayeen آيات كلا إله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى على كل نحن وصعنا وفي كل خير إني تلماميسو مؤمن كإيمان صحيح لقاها لا طاعد سليمي كل بين خير كسوغيني لكن markay timaado mu'minka in classification lagu sameeyo in la kala sooco inuu ka qawiga iyo ka khayr badan yahay ka daciifka abuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qaacidada markuu nabigu sheegay ayuu wuxuu inoo tilmaamayaa dardaaranana siinaya dardaarankani waxa uu sheegayaa wixii qofka mu'minka qawiga ka dhigi lahaa maxaa qofka mu'minka xoog u yeelaya wuxuu nabigu yidhi kow احرص على ما ينفعك waxaad ku dadaashaa oo ilaalisaa waxa ku anfacaya nolosha aynu joogno bini aadamku waqti isku mid u haystaa waqti isku mid ah inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadka ay dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc sababtay u kala noociyina waa masaladatan camalka bini aadamku qabta waa saddex qaybood mid oo inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduuma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madaro toona lahayn laba inaad ka tagtaa markaa la rabaa midna qaadatid wuxuu nabigu leeyahay ixras calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya
waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca. taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag. waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin. dadka in badan oo ka midi waxaabay dhib ku ah waqtigoodaba, marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan, waxay ku madadaashaan. madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu waqtigiisa ku baabi'iyo, xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo, aan adduunkana manfac ku lahayn, aakhirana manfac ku lahayn. adduunna wax kama tarayso waxaan u wadaa, aakhirana wax kama tarayso. qofna isagu wixii dhibayay baabuu waqtigiisii ku bixiyey wax xaaraan oo aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak, calaa maa yanfacuk, ku dadaal waxa ku anfacaya. bitacbiiri ahli lcasri waa waxay yidhahdaan kun muntijan aw kun iijaabiyan, qof wax soo saar le ahaw, qof wax tara ahaw, qof wanaagga qabta noqo. noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay. haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tage ka tag. haddaad manfac adduun ka weydo ama manfac aakhiro ka weydo waxtar ma leh. sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh. siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekeeyo oo dhammi waxtar ma leh. kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawado oo dhammi waxtar ma leh. wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badani waxtar ma leh. wax badan aan waxtar lahayn baa dadku waqtigiisii ku qaada. nebiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih. qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin. tarkuhu maa laa yacniih, waxaan isaga khusaynin. waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin. maanta o dhan haddaad ka waranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay, adiga waxba ku tari mahaya. warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso. akhbaarta siyaasiga dad ka sheekeeya inteeda ugu badan leh waxba ku tari mayso. waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wadoo dhammi akharuhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba. inta aan aakhiriya adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn. marka wixii aan manfac ku jirin mid adduun iyo mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad waqtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk, wixii ku anfacaya ku dadaal. intaa kadib buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah, ilaahayna kaalmayso. ilaahay kaalmayso macnaheedu waa in qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakarayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro. qofka mu'minka ee dhabta ahi quruur kuma dhaco iyo cujb, isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana. qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu mar kasta u baahan yahay, mar kastaba inuu ilaahay u baahan yahay. saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay ishortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. ilaahu adaanu ku caabudaynaa keligaa baanu kaa kaalmo dalbaynaa. qofka muslimka ahi mar kasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga, waa qof muujiya inuu yahay addoon daciifa, waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billaah. wuxuu rumaysan yahay waa kanzun ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. cabdillaahi ibnu qays buu nebigu yidhi ma ku tusiyaa kanz min kunuuzi ljanna, khasnadaha jannada ka mida makuu sheegaa? faqultu balaa yaa rasuula allah, haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow. xadiidka saxiixayn ku yaal nebigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan. laa xawl xeelad malihi iyo awoodtoona ilaa billaahi mooyaane, ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane
anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna ma lihi qofka muslimka ah markaa waa qof baahidiisa ilaahay u bandhiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaada waan ku jeclahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo arguna waa ku jeclay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku barayaa ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin mar kastoo aad salaad tukato farala erayadan ku dhawaaq erayadu maxay yihiin waa erayada adkaarta aynu akhrino markaynu salaadaha tukanoyn allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga inaan ku xuso aanan ku ilaabin inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin iyo si fiican inaan kuu caabudo ilaahu kaa iigu gargaardhe nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho waxaan ku anfacayn inaad ka tagto isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu watacaala aad u tala saarato wax walba wuxuu nebigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan walaa tacjis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam tacjis iyo tacjas labadaba waa la odhan karaa buu yidhahdaa imaamu nawowi laakiin kasrada caana walaa tacjis ha caajisinku waa maxay qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaan alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaan kasalku waa qofku wahsiya cadamuliraada waa qofku aan doonisba lahayn inuu wax qabtaba rabin cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila u taagla cadam ilqudra shaqo kastoo la qabtaa waxay yidhaahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya insha allah berraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degayaa markaasuu leeya insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camala isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangaraynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iska wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karta waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa arma shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisin bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma inii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci اddayni wagalabat الrijaal
isagoo ku celcelinayo le ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada. hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro. xusniguna waa wixii ka tagay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba. idan waa laba warwar ama laba walbahaar, laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tagay, midna waa waxa soo socda. nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay. wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu walkasal. waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay. qofku inuu cadami lqudra, inuu wax awoodi waayo, ama in doonistuba ka dhimato. doonistuba inay ka dhimato. oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay. waa raaxaysanaya buu leeyahay, deetana wuu jiifaya saa baktiga. waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso. qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa uun, intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay, intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida. wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga. jubnigu waa baqaha. waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya, dabeetana si aad u sugaysa walaadee baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa. hadhowna waxay gaaraysaa shaqadii waxaanad qaban karinba. bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin. anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin. wadalaci dayni waghalabati rijaal. waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata. xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active, qof nashiita, qof firfircoon, qof raba inuu wax qabto, qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan, qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya. walidaalika buu nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nabigu yidhi, waar midkiin miyuu kari waayaya an yaksiba kula yawmin 1000 xasana. maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa? nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana. oo midkaayo suu 1000 xasano u shaqaysan karaa, 1000 ajara u heli karaa. qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktab lahu 1000 xasana. dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa laguu qoraya. subxaan allah intay kaa qaadanaysa? 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute. ka waran 1 daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto. saacaddii misaad shaqaysan karaysa? waxaa meesha taalla markaa nebigu wuxuu leeyahy qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa, aw yuxatu canhu 1000 khati'a, ama 1000 dambaa laga dhigaa. cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan. ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan. si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy acjasu nnaasi man cajasa can idducaa. acjasu nnaas man cajisa can idducaa. dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo. wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam. dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum. assalaamu calaykum waa duco. inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa. ayuha alaxiba, waxaan leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga. marar badan buu sababta cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada. waayo subxaan allahi haddaanad ajarkeeda garanaynin waa aqoon darra ku haysata. aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo. haddaad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata. walow uu xoog badan yahay, walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo, walow uu caqli badan yahay,
mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidna waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba se aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tamardarradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajaztu an akuuna mithla hada alguraab fauwaariya saw'ata akhii faasbaxa min annaadimiin in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu u galo meydkii walaalkii buu garan waayey ilaahay baa wuxuu u soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay godu qodoy oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acajaztu an akuuna mithla hada alguraab halaagaygiiyow kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo idan jahligu tukuu macallinkaaga dhigi dad badan oo maanta soomaaliyeedoo iska fadhfadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen jahligaa fadhiisiiyey beer si loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiiyey jahligu markaa dadka wuu dulleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa almu'min alqawiy khayru axabu ila allahi min almu'min daciif wa fi kullin khayr quwada la sheegaya aqoontaa ka mid ah si awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inagala dardaarmayaa istacin billaahi walaa tacjiz ilaahay kaalmayso oo isticaanadaada ilaahay kaalmayso hana caajisin qur-aankana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in badan baa ilahay wuxuu qur-aanka ka warramaya reer banu israa'iil oo la leeyahy khuduu maa aataynaakum biquwa war waxaan diinkaanu idiin soo dejinnay war si ijtihaad iyo firfircooni iyo xoog uu ku jiro khuduu maa aataynaakum biquwa baa ilaahay leeyahy نبي موسى محا إلهي لي وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إلهي نبي موسى كلي فخذها بقوة سددال هي تمر كتشر تقاضى خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا مركي إلهي النبي يحيى لهد لي وحلري يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيو كتابك سي حوغان وقادة بالليل سي جدية سي اجتهاد كتشرو سي الددال يفر فرعوني كتشرتو إلهي كتابك سو قادة بالليل وحا قرآنك إلهي وكسي فينيا دادك وهسك يا عكسك هيا إن استفادة منافقين تطي وهسك إليه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى منافقين إلهي وعكوت المام صلاة هذا وكعا وكوكعا إيغو كسالى إيغو وهسي يعاجس هيو ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة لما يما دنبا إلهي إيغو حالة كسوغان مويان أيها الأحبة markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض واردتك مؤمنين تهم حيد كل عي وهدي الله إذا هذا إلهي تيسا وصباح جهادك وصوكع أثاقلتم إلى الأرض بالله ما حدول كيدن كعسليي يا إلهي إلهي سبحانه وتعالى ما حدول كسقنا بيسارو كعكير ويدين أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما أدون كآخرة كشعلات با إلهي إلهي فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة كوا منافقين جهادك كوه سدا إلهي وحكوت المام إن الصفات كمنافقين تكمتي تاسي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن صار وحيدا كم إذا بقى إلهي مدتك بعكس قالين يوفر السنة ودبوا الريبية وحيدا هذا دراسات كعلمي جدا بحتى عافمات كغلطا ما تشتغل سوا حيت المامين دراسة المامين علمي هونغ كونغ في السمايين ويدتك هونغ كونغ بارين كسوا حيدا هذين ليزي نسكي وحقبض لا أنت iyo sigaarka bulshada keeba dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6800 meelaas ay noqotay qolana 5700 maanta waa kuwan yiraahdaa xanuunada ugu tirada badan ee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay exercise laan exercise la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato لكن هذا تسكيور تونا فرديد قف فردية هبين يا معلم با عافمات كيسا بخطر كتيرة كالي نولش أنا دو حتر كويا لتي وحصوصار أنا ديالت وح خطر تجلي يا وحويا المحي أديك عافمات كاجي بخطر جلي ولذلك بقى طبعا ما أنت وحي تلماميان قفكو إنه نشاط سكيليو ما معان بعد غبطة مسكر بعد غبطة ما كم بعد غبطة ما أنت صعو أنت قبو أنت يعني هو وحقبو fadhigu marka aqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduuna uma fiicna laziness marka nolosha meel laba wax kaga male waxa meesha taala qofka mu'minkii inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo waliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barba isle faataka alqatar ka sheegi jireen yani waqtigii ba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta laga yaabaa dadka badheysay oo maanta kuntan jirbaad ama waxbaad baran karaysaa dad ba kuntan jirreynta ku bilaabeen culimadii waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adiga waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira نبي محمد عليه الصلاة والسلام سوى تاين قدرين يوحت المامية إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبي قول لها دو قيامه حقا كصوب لا بوصاقعه وأدقعنت كوهيسو فصيلة دو حالي جت مريت كيرا لا أبغى ليو جت مريت يا أدقعنت كوهيسو هذا تكجر سينكرتين هذا أبقى شبه النبي يقول يا أبقال بير هذا تكجر سينكرتا بير وهنا أيضا قيامة بيننا نركين بين فردنا ولا نوان جبوبي سومالي ده أفرتن شركة يكون جبوبي ده سوما في الصومالي مركو بني آدم كبوا حق بدنا مركو جارو أيوة هذا نوان جبوبه وحول ما يقدر بعده بني آدم كو عقل يكون كجبوبه هذا ما إنك كجبوده أيوة ما تجبوده انت كلا وحبات قبان كرتا انت كلا وحبات قبان كرتا ساوغيد بو النبي عليه الصلاه والسلام وحينات الماميه قبل الموت ان فرص جرو انت جيريده كهوريسه فرصه هيساتو فرصه wax lagu qabto inaad haysato waxaad yareysanaysaa wax weyn noqda waxaad yareysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraana inaad qaybtaa waa wax kula yar Soomaa xasilada وهذا مالك استصدر قيب قرما قران كدمين هذا صدر قيب قرما قران كدمين waxay dhahan dhowr iyo 10 sanadood dad ku dhameynaysa hadaad maalin kasta sadar qaybto
هذا هو صدر هل صدر واحد هذا وحقبتكو تراكمك بيريتانكو قيمها كو سمايا مركنا قبان سوى حيرانتي سيكون مغني هداد مالنتي هل صفحة قرطو هل بيج هداد مالنتي قرطو سنة كي مسات سو صارسة ويران لو بوك باد قوري كرتا سنة كستا وهي سنة كو صدح بقولي شنية اللحدة مال الموت هداد مالك استبيج قرطو معناه دو حويان ويران بوك صدح بقولو بيج كبضان هي قوري كرتا لكن هذا استنادو ما حاشي أن قريبا بوك نقول دونتا محام حاشي كقوري دونا أقونتو iyo waxqabadku iyo waxtarku traakumka inay biirtaabay wax ku noqota wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taasi waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin in wadaada wuxuu tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray uu cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda inta gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa haday taraakumto de waa hadad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay amalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardiga iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan amalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinu walaa taxzanu waantum la'alawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniinta wahniyo idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinka koreeyaba ilaahay tilmaamaya hadda kuwa mu'miniinati hadda dariiqa iimaanka raacdan waa koreynaysan hatta markan awoodaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin inta qabo سويت بإلهي القرآن كوحله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدنا أنت النبي قاتل معه ربيون معي سايلات قال قالين كوا ربي لو نسبي داد إلهي سليبي ومي ضعيف وحيد بسو قاري مي إسديب مي إسدول دقين waxay noqdeen dad walow markaa laga xoog batay wada amalkii ilaa intay natiijada ka gaarayaan ayuha lahibba marka xadiiska kan wuxuu nabigu ku gabagabeynaya calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii ka tagay tiiraanyadooda inaad isku mashquulin وحنا نبغى تلمامي عليه الصلاة والسلام هأورنن بل ما هذا صدا يالي لها وحاسة صبح الأساس نقولها فإن لو تفتحه وحي فرطا لو وعمل الشيطان الباب كالشيطان كيف فرطا ومحاجرة القضاء والقدر مرة دوك ضافه لما على عاله قاربا وحي هذين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أدينا لتشوقي لهاي وقوة منافقين وحيلين مسلمين تصور ما نسهدي اسكت شوقي لهاي ونا لا فردي لهايين ما ماتوا وما قتلوا ما نيدنتين لبندلين إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وأنا حتى قريه نادا كشرتان أنت وقتك وكذا ما تجرد ويوم الله يبقى إلهي سبحانه وتعالى سأوجد لو هاي علماء قارين هذا موضوع التعليم كون بيكون في عنتي يلا استعمالي كره ومثلا جامعة بتكسو غالي تشبيسي وحيات برطان ماركت كان شقة كلها هاي وقف يربا كويري لا طله مرة سوا حتقول لي ما أنت هذا شانس كا هيسان لها لو كان هذا شانس كا هيسان لها كان ما قالينا كهسان قليلا
وللتعليم قف كم بعد ربطينا ترى هذا والنتيجة أنا وضدا صومر يوم في عناه واحد سكوت ضيدا محي كان كلامنا أساس الدرادات بالنبي لها لو استقبلت من أمري ما استدبرت مركي أيوت المامي دتكي صاح الدي عمرضة ما حاجة صاح الدي حلالو بكروي هدي جودي هدات هدي وضم حلالو ما بيصير هذا أنا أرنكيك هذا وحي صورة في هذا يبلاب ملها بالنبي ليه هدينا ما صوك حيين ضدكنا ولا حلالو بالها بالنبي عليه عليه الصلاة والسلام علماء واحد هذا المركع من باب التعليم يما لها هديت هاي وبنان تهي لكن باب علاعلك هديت هاي بيلين ما بنانا وهو محي قل ما شاء الله كان وين ربيستا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وحي تجي وحي تجي وحبك ما بدلي كرتين ما دام أنا وحبك بدلي كرينين إلهي وحوق الماما يا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلهي وحدون أمه يعني وحكى الله إذنك دوني كرتان ما جرتو إن الله كان عليما حكيما بل وحدك على صحابة لغاية ما خير كساكو جري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وحنكو سوكوبا يا مركا حديثك لما انتيبا نبقى عليه الصلاة والسلام وحينو الشيء مؤمنك واحترك نفعك عليه حوقيسي عقليسي iyo wixiisu qabanayo nashiidka kufur fircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhamaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyay wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsano cagsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno وإن أصابك شيء فلا تقول هدي وحسدي أتربتين نتيجة ودع ويدنا هأوران نبو نبوي عليه الصلاة والسلام هذا صدا يسدا يلي لها لكن وحتى هذا قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين